ساك وحا فرحت له أنيقا يوفق بلارن جيدان إنا قوام بحينو كغيب قلقا دعودي بدأ يودا حيسي دولة الفدرال الصومالية هي دلك كينيا دعوتها سو مراحل كلا دوان سو مرتين إلى 2014 qaybtii hore oo shaqada badankeeda ahayd dhageysiga dacwadda ku salaysan qoraalka iyo cadeymaha waxa ay soo dhamaatay 2018 December 2017 iyo 2018 shaqo aad u ballaaran baa laga qabtay waa wax dadkoo dhan arki karaan oo maxkamadda website-deeda ku jirta idinkuna indhihiina aad ku arki kartaan marka dhageysigii dacwadda iyo doodihii dacwadda ee xagga qoraalka iyo cadeymaha ku saabsanaa way dhamaadeen 2019 2020 iyo ilaa hadda waxa ay sugaynay in Soomaaliya xaq ay u hesho in la maqlo doodeeda afeed taasoo halgan dheer iyo doodba kadib مسؤولية الدولة أو حصارا مدحوينها ومدى رئيس وزارها يشرع يقالني يقرينني كشغينا يي آخر في أي محكمة ومسير شريعة ومكفي شمار وإن هذا كتشرنو إلا دقيست الضوء عفين دعوتها محكمة أرنتاس هذا آيان هو أمبحينا مسؤولية أو جيدان وحكلوا يقول الشوبة وكذا قانون دونا أبكى virtualka قريقانadii iyo sharciyaqaanadii iyo khubaradii kale waxa dhageysiga dacwadu ka koobnaan doona laba hab maadaama cudurkan COVID-19 uu xadidayo dad kooban inay maxkamadda joogi karaan dadka intiisa kalena ay kaga qeyb qaadan karaan online idinka qudhiinu maxkamaddu way furan tahay waxaan idinka codsanayaa idinka soo jeedinayaa maadaama halkan umadeen iyo halkan shacab ay tahay dacwo taariikhi ay tahay halkaa ka dhulkeenna iyo baddeenna aynaan ka tanaasulahaynin rajo weynna aan qabno in doorka saxaafaddii haddaad tihiin muwaadinnimo iyo soomaalinimo idinkaga aadan aad ka qaadataan aad la socotaan dacwaddu intay socoto 15-ka 16-ka 17-ka waa la nasanayaa 18-ka iyo 19-ka shantaa cishaba in aydun online kaga soo qayb gashaan si live uga soo qayb gashaan oo u daawataan oo u dhageysataan oo u adorestaan oo u faaqitaan kalsooni weyn baanu qabnaa ilaahay naftiisa inaan ku guuleysanayno 2019 dabayaaqadeedii bay ahayd in dhageysiga dacwaddan la isugu yimaado sababa jira awgeed iyo cudurka COVID-19 2019kiiba 3 goor baa dib loo dhigay marafraadkii waxaan ku adkaysanay annagoo kuwa horeba diidnay inaan dib loo dhigi kara haynin hadda diyaar baynu u nahay inaynu ka qayb galno insha Allah saakaanu aan baxaynaa 15 ayay bilaabmanaysaa dhageysigeedu ilaa 19 waa ay socon doontaa guul baan rajaynaynaa halganka taariikhiga ah ee wadaninimo ee dalkeenna aynu ugu jirno dhulkeenna ugu jirno baddeenna ugu jirno kaalinta miidiya haddaadii saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dawladdaba idinkaga aadan ee aydu ku leedihiin waa inaad ka qayb qaadataan guul baan inoo rajaynayaa waa mahadsantihiin maalin walbana warbixin waa idin soo siin doonnaa insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku soo dhoweynayaa xeraalyaha guud oo kelmad ku dari doona markaa intaasay nagaga eeg tahay wax su'aalo ah maanaan maanta ku soo talagelin waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس وزراء وشيخي ujeedada safarkeena maanta waa ka qaybgalka dood afeedka dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa oo ay maxkamaddu horey u go'aamisay horeyna u diiday suurtaagii Kenya ay samaysay ee la xiriirsanaa dacwada badda suurtaaga markuu soo baxay la socotaan dawladda Kenya marar badan bay isku dayday oo codsiyo u gudbisay maxkamadda cadaaladda adduunka si ay keeska u dibdhigto laakiin dawladda Soomaaliya aragtideeda iyo go'aankeeda markasta wuxuu ahaa
in aan dood-afeedka u dambeeya aan la dibdhigin xilligiisiina uu ku dhaco. waxaan intaa ku darayaa badda Soomaaliya waa qayb ka mid ah gobonnimada Soomaaliya iyo sovereignty-geeda. sovereignty-guna waxa weeye hawl iyo shay uu ilaaliyay dastuurka ku-meel-gaarka ee Soomaaliya cutubkiisa 1 qodobka 7 oo tilmaamaya in gobonnimada Soomaaliya ay tahay wax aan lagu xadgudbi karin lana qaybin karin cidina aan laga ogolaanin inay taaka in la ku xadgudubto maadaama ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin ilaalinta iyo dhowridda gobonnimada Soomaaliya iyo u daadinta dhiig kasta oo gala. sida ka warhaysaan kiiska badda Soomaaliya wuxuu yaalaa maxkamadda cadaaladda adduunka. maxkamadda cadaaladda adduunka Soomaaliya waxay xubin ka noqotay 1963 oo aad dareemi kartid 3 sano kadib markii aan gumaysiga ka xorownay baa waxaan ku biirnay maxkamadda cadaaladda adduunka. ujeeddada ay Soomaaliya ugu biiraysay waxay ahayd in ay muranada noocan oo kale tahay haddii ay yimaadaan inay si hab caalami ah oo nabadgelyo ah ay ku xalliso muranada kala dhaxeeya dawladaha kaleeto. marka maadaama ay Soomaaliya xubin ay ka tahay maxkamadda cadaaladda adduunka go'aankeedana uu ahaa in ay muranada noocaas oo kale ay geyso dawladda Soomaaliya waxay dacwada badda geysay 2014 marka dacwada la geeyay 2004 waajibaadka naga saaran charterka UN-ka oo tilmaamay asagana muranada dawladaha iyo nabadgelyada caalamiga ah la xiriirsan in lagu xalliyo qaab nabad ah oo peaceful ah. waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa in dawladda Soomaaliya madaxweynaha uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaysan ka hagranin waqti maal maskax iyo wax kasta oo lagu badbaadin karo badda Soomaaliya iyo gobonnimada Soomaaliya. madaxweynuhuna uusan marna ka mashquulin arrinta badda iyo hagidda keyskan u baahan yahay iyo tilmaamaha u baahan yahay in la dhammaystiro. waxaan ku gabagabeynayaa Soomaaliya doodeeda oo la xiriirsan baddan waa dood adag waxayna ku dhisan tahay kuna salaysan tahay xeerarka caalamiga ah ee badaha oo Soomaaliya ay qayb ka tahay xeerkaas kuna biirtay 1982 markii uu soo baxay certification-keedana ay samaysay 1989. xeerka wuxuu tilmaamayo waxay ku dhisan tahay qareennadana doodeeda waxay ku dhisan tahay in Soomaaliya ay dalbanayso in xariiqdinta iyo go'aamada ay gaarayso xukuumadda lagu saleeyo mabaadi'da waaweyn oo ka mid yahay equal distance oo ku calaamaysan kuna dhex jira xeerka badda caalamiga. badda keyska ay Soomaaliya geysatayna waxa uu ku tilmaaman yahay asagana qodobka qaybta 15aad ee xeerka badaha caalamiga. waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu guuleeyo ummadda Soomaaliyeed ay maqasho war farxad leh maadaama ay horay dacwooyinka hordhaca ahaa oo la xiriirsanaa suurtaagyadii ay keentay dawladda Kenya lagaga soo guuleystay. waxaan rajaynaynaa gabagabada inaan guuleysano dhammaantiina. waxaan idinka codsanaynaa in ducada iyo wixii garab istaaga loo baahan yahay dawladda in lala garab istaago keyska baddana uusan noqon wax la siyaasadeeyo oo siyaasad laga dhigto maadaama uu taabanayo gobonnimada iyo qarannimada Soomaaliya waa inaan loo isticmaalin arrimo siyaasadeed. aad baan idinku mahadcelinayaa wabilaahi tawfiiq.